Uzbek iyo Rika marka ay gaaraan Yurub waxay u qaadanayaan inay duni kala tageen oo wax walba waa ka diimayaan, waana dabciga bini'aadamka in xaajo nin la toosani ay mid kale tuur la yeelato. tusaale ahaan Uzbek warqad uu u diray nin ay saaxiib ahaayeen oo ku noolaa magaalada Izmir ee cariga Turkiga waxa uu ku leeyahay waa muuqaal la yaab leh in qof muslim ahi uu markii ugu horeysay arko magaalo masiixi ah. ka hadli maayo waxyaabaha dareenka soo jiidanaya ay ka mid ka yihiin inaan ku kala duwannahay dhismayaasha, dhar xirashada iyo caadooyinka asaasiga ah. waxaan arkayo oo idil waa wax cajiib ah oo igu abuura dareen la yaab leh oo aanan cabiri karin. mar kale Uzbek warqad uu u diray nin ay qaraabo ahaayeen oo Talyaaniga ku noolaa waxa uu ku yiri wax walba way xiiso geliyaan, wax walba way soo jiitaan, waxaana la mid ahay sida ilmo caruur ah oo xubnihiisa curdinka ah ay wax walba ku diimaan. hase yeeshee Uzbek iyo saaxiibkiis durba waxay yaqiinsanayaan in si kasta oo dhaqamadu ay u kala duwan yihiin haddana weli ay joogaan duni bini'aadam la mid ah ay ku dhaqan yihiin, ayna la gudboon tahay in si feejignaani ku jirto ay isugu dheelitiraan midnimada aadmiga iyo kala duwanaanta dhaqamada. sida dhabta ah dalxiisayaasha Bershiyaanka ima aha khashiin ama damiin wax walba ku diimaya, balse waa rag leh garaad ay wax ku miisaamaan, samaha iyo xumaha ku kala gartaan. mana aha rag ku sirmaya muuqaalka kore ee dadka iyo walxaha, balse waa wax garad si hoose ugu fiirsanaya nuxurka umuuraha. haddana Soomaalidu been ma sheegin, jeerkii ay ku mahmaaheen dariskaaga mar ku diin, marna ku dayo, marna ka darno. mutaskii buugan wuxuu ku dhaleecaynayaa boqorrada, xildhibaanada, garsoorka, siyaasiyiinta, saxaafadda, aqoon-yahanada, wadaadada, haweenka iyo qaar kale. tusaale ahaan boqorrada waxa uu ku eedeynayaa in sharciga aysan cadaaladda ugu adeegin ee ay danahooda. mar uu boqorkii Faransiiska ee Louis-kii 14aad tilmaamayna wuxuu yiri boqorka Faransiisku waa kan ugu weyn dhammaan boqorrada Yurub, ma uu laha ceelal dahab ah sida kan ay dariska yihiin ee boqorka Isbaanishka, laakiin wuu ka hodansan yahay maxaa yeelay wuxuu ka faa'iideystaa isla weynida shacabkiisa iyo faan jacaylkooda, kaas oo ah il dhaqaale oo aan u dhammaan sida ceelasha dahabka ay u guraan. sidaa awgeed ma uu heli karo xoolo aan ka ahayn inuu iibiyo naanaysaha sharafta. mucjisada isla weynaanta aadmiga ayaa fursad u siisa inuu bixiyo mushaharka askartiisa, dhufaysyadiisa uu xoojiyo, cutubyadiisana uu u diyaariyo. dhanka kale boqorkani waa sixiroolo weyn oo awoodiisa ku sameeya fikirka raaciyadiisa, kana dhiga kuwo u fakara sida uu rabo. haddii khasnadiisa ay ku jirto 1 milyan oo gini uuna u baahan yahay 2 milyan oo gini, waxa kaliya uu sameeyaa waa in uu ku qanciyo in 1 gini uu la eg yahay 2 gini oo ay rumaystaan. haddii dagaalku sii cuslaado oo uu masalafana, waxa qura ee ay ku kalifaysaa waa in uu laabta ugu rido in xaashiyuhu ay xoolo yihiin, iyaguna ay taa ka aqbalaan. bal xaaladdu waxayba gaartay in ay rumaystaan in xanuun oo dhan uu ka bogsiin karo kolka uu taabto. maxaa ka weyn awoodda uu naftooda ku leeyahay? qoraagu wuxuu tilmaamayaa magacaanta iyo manaasibta la iibsado, amaahda ay dowladuhu shacabka ka qaataan iyo lacagaha ay daabacaan. goortii boqor Louis-kii 14aad uu geeriyooday ee wiilkiisii uu carshiga ka dhaxlay, dadku waxay bilaabeen in ay ka faalloodaan waxa laga fili karo boqorka cusub. jeerkaasna Montesquieu isagoo dadka xusuusinaya sida ay siyaasiyiintu ay ugu nugul yihiin wadaadada iyo dumarka wuxuu yiri habdhaqanka boqorrada reer galbeedka lama saadaalin karo jeer laba imtixaan oo waaweyn ay ka gudbaan. haweenka iyo wadaadada mid kasta oo labadan ka mid ahi wuxuu ku dadaalaa sidii uu nafta boqorka ku hanan lahaa, sidaa awgeed wuxuu geli doonaa dagaallo khatar ah. qoraagu faallada waa sii watay isagoo adeegsanaya magaca Bershiyaanka martida ah ee Uzbek, wuxuuna yiri waagii aan imid Faransiiska waxaan ogaaday in boqorkii geeriyooday ay haweenku si buuxda ugu talin jireen, inkastoo uu ahaa waayeel gaboobay oo boqorrada oo dhan dumarka ugu baahi yar. maxay tahay sababta haweeney ku bixinaysa in ay la saaxiibto wasiir? ma waxayna la tahay in ay ka heshay? maxay tahay nacasnimadu? waxay rabtaa in waagii baryaba ay ka saxiixdo 5 ama 6 codsi. dadka Bershiyaanku waxay ka cawdaan in 2 ama 3 dumar ah ay wadankooda xukumaan. xaaladda Faransiisku taa waa ka sii daran tahay. halkan haweenka oo dhan baa xukuma, hal meel kama xukumaan ee awoodda ay qabsadeen.
wuxuu dhaleecaynaya wasiirada iyo xildhibaanada. Wuxuu ku doodayaa in weligeed aan la arag boqor xun, haddii ay dhacdana ay wasiiradiisa iyo la taliyayaashiisu ka sii xumaayeen. Wasiirada iyo la taliyayaasha ayaa ah kuwa boqorada iyo madaxweynayaasha sida xun wax ugu sheega. Montesquieu isaga oo aad moodo in uu ka hadlayo xaaladda Soomaaliya maanta ka jirta, ayuu xildhibaanada dalkiisa wuxuu ku eedeynayaa in xeerarka ay ansixiyaan aysan ahayn kuwa ay ka fekeraan samaan iyo xumaan midka ay bulshada ku yeelanayaan, balse ay si fudud u soo guuriyaan sharciyo wadamo kale loo dejiyay oo wadankooda aan khusayn. Docda kale, Montesquieu wadaadada kiniisadda wuxuu ku eedeeyaa khuraafaad, musuqmaasuq, masaakiin magaca diinta loogu dhaco iyo af iyo uur kala jeeda. Mar uu wax ka tilmaamay khuraafaadka wadaadadana wuxuu yiri, hala yaabin waxaan boqorka kaaga sheegay, waayo waxaa jira sixiroole kale oo ka awood badan. Xataa awoodda uu boqorka ku leeyahay baa ka weyn midda boqorku uu ku leeyahay dadka kale. Sixiroolahan waxaa loogu yeeraa Bob. Badana inta uu boqorka ku qanciyay in saddexdu ay hal keliya tahay, kimista la cunaana ay kimis ahayn, khamrada la cabaana aysan khamro ahayn, iyo arrimo badan oo kale oo noocan ah. Dadka haysta diinta Kirishtanku waxay qabaan in Ciise Masiix habeenkii ugu dambeeyay uu xertiisa la casheynayay in uu u qaybiyay kimis iyo khamro, uuna u sheegay in ay kala matalayaan dhiiggiisa iyo hilibkiisa. Khamrada iyo kimista kiniisadana qofkii sidaa u niyeysta loogu dambi dhaafo. Saddexda halka isku ahina waa fikradda ay Masiixidu aaminsan yihiin ee sheegaysa in Eebbe uu saddex muuqaal leeyahay: Aabbaha, Inanka oo Ciise Masiixiya, iyo Ruuxda Quduuska ah, Trinity. Montesquieu wuxuu cambaaraynayaa dagaalada macno darrada ah ee u dhexeeya wadaadada iyo madaahibta Masiixiga ah, iyo guud ahaan dagaalada diimaha iyo madaahibta ku salaysan. Bilmatal mar uu tilmaamayo colaadaha madaahibta diinta Masiixiga wuxuu yiri, ma jirto boqortooyo uu gudaheeda dagaal sokeeye uga dhacay sida boqortooyada Masiixiga. Waxaan kuu sheegayaa ma aha wax u gaar ah Faransiiska iyo Jarmalka, maxaa yeelay dadka waxaan ka maqlay in Spain iyo Talyaanigu ay joogaan wadaado aan farxad aqoon oo dadka u guba sida xaabada loo gubo. Montesquieu wuxuu ku jeesjeesay howlgallada diin faafinta ee xilligaas wadaadada Masiixigu ka wadeen dhulalka dibadda. Wuxuu wax lala yaabo ku sheegay falalka reer Yurubka ay ku cadaynayaan wejiga Afrikaanka iyaga oo ku doodaya inay aadamiga ugu adeegayaan. Mar uu la hadlayo wadaadada ku andacooda in Eebbe cadaabayo dadka aysan iyaga isku diinta ahayn, wuxuu yiri, ma waxay idinla tahay in Eebbe uu ku ciqaabayo in aysan ku camal falin diin uusan iyaga u waxyoon? Do you think that God will punish them for not practicing a religion which he did not reveal to them? Qoraagu isaga oo adeegsanaya qaab majaajilo ah ayuu si dadban wuxuu isbarbardhig ugu sameynayaa qaar ka mid ah diimaha adduunka. Wuxuu gaarayaa natiijo ah in uusan jirin farqi weyn oo macno sameynaya oo u dhexeeya diimaha dadyowga dunidu ay kala haystaan. Meelo badan oo buugga waxa uu kaga faalloonayaa ahmiyadda wada noolaanshiyaha iyo xorriyadda diinta. Wuxuu ka warmayaa waxtarka xorriyadda diintu ay u leedahay nabadda iyo horumarka bulshada. Tusaale ahaan dhambaalada 85 wuxuu kaga hadlayaa wanaagga xorriyadda diinta iyo dhibkii dhaqan-dhaqaale ee dalka Iiraan ka soo gaaray markii dadka haysta diinta Saraadashtiga dalkaas laga ceyriyay. Wuxuu ka digayaa xumaha ka dhalan kara haddii shaaha Iiraan uu ansixiyo qorshaha siyaasiyiinta dalkaas qaarkood ay ku doonayaan in la barakiciyo Armaanida Masiixida ah. Fariimaha faraha badan ee mudane Montesquieu uu dadyowga reer galbeedka u sheegay waxaa ka mid ah in dunida aysan kaligood ku noolayn ee lala wadaago, sidaa awgeedna looga baahan yahay in aysan dhibsan dhaqamada iyo diimaha dadka kale. Tusaale ahaan marar badan Islaamka iyo Muslimiinta ayuu ammaanaya. Danta uu taa ka leeyahayna maaha gaclo gaar ah oo uu qabo Islaamka iyo Muslimiinta, balse waa inuu dadkiisa ku baraarujiyo in kaligood aysan diin haysan ee ummado badan oo diimo kala haysta ay jiraan, isla markaana qolo kasta ay u haysato in diintoodu ay tahay midda diimaha ugu saxan. qof ahaana mar kasta oo aan fariinta maqlo waxaan isweydiiyaa, abooyow goorma ayaa muslimiintu heli doonaan cid u sheegtay in dunida aysan kali ku ahayn ee lala wadaago? muddo qarni ku dhow baa dunida Islaamka waxaa lagu faafinayay fikrada ay wadaadadu bixiyeen macalin u noqoshada adduunyada. adeegsiga eray bixintan waxaa ku caanbaxay ururka Ikhwaanul Muslimiinka, laakiin hirgelintiisa waxaa ka siman ururada saxwada oo dhan.
waa fikrad nuxurkeedu uu yahay in ururada diiniga ah ee muslimiintu ay qabsadaan adduunka oo idil kadib marka la sameeyo howlgallo isdaba jooga oo ka bilowda in la helo qof muslim ah oo sameeya qoys muslim ah oo isaguna markiisa sameeya bulsho muslim ah oo iyaduna kolkeeda abuurta dowlad muslim ah oo soo celisa khilaafadii islaamka oo kaligeed xaq u leh in ay dunida ka taliso oo dhab ahaantii laga wado qof ikhwaan ah oo dhisa qoys ikhwaan ah oo abuura bulsho ikhwaan ah oo iyaguna sameeya dowlad ikhwaan ah oo calanka u taagta khilaafo ikhwaan ah. waxaa xusin mudan macnaha qoyska halkan uusan ahayn qoyska la yaqaan ee ka kooban aabba iyo hooyo iyo asalkooda iyo faracooda, balse waxaa laga wadaa xubno isku ideolojiyad ah oo sheeko iyo wada shaqayn leh. xasan al-banna oo noolaa 1906 ilaa 1949 oo ah ninka aasaasay ururka ikhwaan almuslimiinku, isaga oo sharaxaya hawsha la doonayo in ururka uu qabto, wuxuu yiri xilkaygu waa in aan hogaamino dunida aadmiga oo dhanna aan ku duno nidaamyada islaamka ee hagaagsan iyo waxa ay farayaan oo la'aantood aysan dadku liibaanayn. wadaadada saxaabadu waxay dhalinyarada ka dhaadhiciyaan in dadka muslimka ay aadmiga ugu garasho badan yihiin, ayna waajib ku tahay in dunida oo dhan ay hogaamiyaan oo xoog iyo xeeladkii ay adeegsadaanba looga fadhiyo in dunida oo idil khilaafada islaamka la hoos keeno, calanka madowna laga taago. waa isla fikradda ay u dagaalamayaan ururada al-shabaab, boko xaram, daacish, qaacido iyo qaar kale oo badan. wadaadadu haddii ay oran lahaayeen waxaan doonaynaa in aan soo celinno ilbaxnimadii islaamka ilaa heer waa loo garaabi lahaa, laakiin waxay yiraahdeen waxaan soo celinaynaa khilaafadii islaamka, waayo waxay la tahay in haddii ay xukunka gacanta ku dhigaan ay helayaan awood ay ku fulin karaan wax walba oo ay damacsan yihiin. ismana ay weydiin in khilaafadii lasoo celin karo iyo in kale, iyo xitaa in khilaafadu waxtar u leedahay muslimiinta iyo in kale. fikradda macallin u noqoshada caalamka iyo khilaafa soo celintu waxay ka hor imanaysaa aayadaha qur-aanka ee sheegaya in eebba uu ummadaha qolaba qaab nololeed gaar ah u sameeyey, kala duwanaantuna ay doonistiisa ku timid. haddii uu damcana uu ummad qura ka dhigi lahaa. waa fikrad waali ah oo caqliga iyo waaqicuba ay diidayaan, lana mid ah tii yuhuuddu ay ku sheegteen in ay yihiin shacab alla doortay, shacabullaahi almukhtaar. waa fikrad kullid ah nolosha horumarka ilbaxnimada. marka hal qolo ay isku daydo in ay keligay dunida ka arrimiso, waxaa abuurma nacayb iyo colaado dunida afeeya. mitaskiyo oo xaqiiqadan qalinka ku adkayna wuxuu yiri waxaan qirayaa in taariikhda ay ka buuxaan dagaalo diimeed, laakiin waxaa loo baahan yahay in aan garanno in sababta dagaaladaasi aysan ahayn tirobadnida diimaha, balse sababta ay tahay tacasubka ay la gubanayaan kuwa u haysta in diintoodu ay ka sarreyso diimaha dadka kale. ruuxdaas xagjirka ah baa waagii hore yuhuudda ku bixisay in ay iskala weynaadaan kooxaha kale. cudurkaas faafa oo markii dambe ay ka qaadeen masiixida iyo muslimiintu, wareerkaas fikirka ku dhaca waa keenaa in garaadka aadmigu uu lumo. adduunyadu waa ka ballaaran tahay meel hal qolo iyo hal fikir ay ka taliyaan. midabyada badan baana ka qurxoon halka midab. milgaha iyo wanaagga noloshuna waxay ku jiraan kala duwanaanta. meelaha ugu yaabka badan buugga waa heerka usbeek uu ku guuldarraysanayo in uu fahmo sida ay u fakaraan xaasaskiisa maqbiyaadka ahi. wuxuu haystaa in ay faraxsan yihiin, daacad yihiin, kuna qanacsan yihiin nolosha iyo qolqolka lagu hayo. laakiin xaaladdu sidaas aad bay uga gedisan tahay oo dumarka waxaa ka buuxa caro, nacayb, murugo iyo wareer. adoonka madaxda u ah ragga dhufaanan ee haweenka u waardiyeeya ayaa wuxuu u dirayaa fariin uu ugu sheegayo in xaasaskiisa oo idil ay anshax xumo iyo gogoldhaaf ku qaadanteen. isaguna wuxuu u dirayaa jawaab uu ku amrayo in uu arrinkaas sida ugu dhaqsaha badan uu wax uga qabto oo haweenka edbiyo. laakiin dhambaalka jawaabta ahi wuxuu soo gaarayaa goor dambe oo xeero iyo fandhaal ay kala dhaceen. haweenkii oo dhammina ay dhinteen marka lagu daro Ruksana oo ahayd midda ugu jecel yahay. uuna u haystay in iyaduna ay indhaheeda ka jeceshahay. malaha usbeek iyo ragga la midka ahi ma aysan maqal oraahda tiraahda nin siil raacay sooba nabad hooyo.
guntii iyo gabagabadii dhambaalada beershiya waa buug la qoray 300 oo sano ka hor, ayna dhici karto in akhristuhu uu ku caajiso baalashiisa hore, laakiin mar haddii uu ka gudbo baalasha hore uusan dhulka dhigayn jeer uu ka laaco. Wadmaasantiin, halkaas ayuu noogu soo dhammaaday dhambaaladii beershiya oo qaybtii hore aynu sii daynay, qaybtii labaadna dhammaadkeedu uu yahay dhegeysigan aad dhegeysanaysaan.